Faysal Cabdullaahi Aadan wuxuu la dhashay deeqa oo magaalada Gaalkacyo booliisku maanta ku soo bandhigeen oo ay sheegeen inay nin iska dhigi jirtay. Waxaan weydiiyey bal inuu iga warramo waxa ay ka ogyihiin eedeymaha loo jeediyey walaashii. Iyadoo gabadhan eedeymaha hadda lagu soo sheegayo wax ooma hayno waxaana dambiyana way gashay oo horna ugu weyn dib aan maqalnaa ma kido magaras hay gabadha anaga iyadoo gabadhan ugu dambeysay caadi ah dadkooda waxaan ka heshiiyay caruur gabar wadaad ka bacdi nin baa naga dooray waa dhistay wiilba u gashay ka bacdi ninkii waa diray waa iska fulay caruur waa wareegtay Gaalkacyo dukaan bay ku haysatay gabadha caadi ah nin ma ahayn halka ayay joogto looga warqabo oo yani ugu dambeysay xaggan abtiyaasha baa degan saasana ugu dambeysay maanta waxa loo weelisay gabadha waa soo qoftay oo naagay rimisay oo xagga fulaan waxa maanta loo weelay ma garan waa garta hadda qofka bini'aadanka dambi hadduu galo dhib ma laha qof dambi uu galo laakiin dambigiisa in lagu soo eedeeyo oo la cadeeyo oo wixii la hubsado weeye haddii qofka dambi galaa qofka dambigiisa marka cararayo in wixii lagu soo cadeeyo ee gabadha fadhisay anaga diyaar oo la tahay waaye marka cabud waqaan bay ka anjirtaa leeyahay way hubaysnaan jirtay tan iyo waaga yaraanteed mar qoray wadan jirtaa leeyahay mar midiyo haysan jirtay dadku reer cabud waqna way yaqaanaan marunba iyo horta gabadhan qaab wax u sameeyay macnaha socodkeeda iyo hadalkeeda iyo horta qaab nin bay u sameeyay oo naagaha iyo dadka way seeri jireen marka hadda si ninkii macnaha iyo dagaalamay jirtay haatan qof macnaha dib kala geysan ma ahayn oo tooreedii waxa soo xiran jiray mar wax sagaan jir u shaqaystaayo hadalkeedana si ninkii iyo hadal jiray ma garan hay laakiin gabadha sida kale gabar bay ahayd naag caadi oo dhashay oo ilma dhashay wiilka dhashay oo dhaqantada reer leeyahay ma garan ninkeeda ma ayada intay la dagaashay iska furtay mise isagaa furay waa inuu san furin oo ka cararay oo kismaayo galaa la sheegay marunba ninkeedii awla uu ku dhistay markay noo dhashayna uu cararay kismaayo tagay waa ka daba tagtay ayaa soo fudhay waa garta markii horena awla baa isku afgaran waayay asaga ka tagay markuu afgaran waayay ka tagay xag waaday ka bacdi ka daba tagtay waa ka soo fudhay halkaan ay timid yar bay joogtay Gaalkacyo raabtiga bay wareegtay marka idinku hadda in la yiraahdo waa nin ma hadda idinku ugu horeysa mise hore waad u qabteen tuhun markeeda horeba ayagoo gabar oo caadi ah baa dadku waxay orantay deeqaninay hadalkeeda iyo xooggeeda iyo soo soconaysa deeqaninay waa ka jirtay laakiin saacadana gabar caadi ah ugu dambeysay waxaan kale la soo bandhigay ee magaalada Gaalkacyo lagu soo bandhigay maxay yihiin anigu waxaan waa arkay waxaan ku arkay Facebook aan ku arkay in khiyaanatay baa waayo qof bini'aadan ah hadda qofka waxaan loola tagayo oo dumarka kala ah qof waalan baa qof islaam ah asoo waxaan meesha xarbo ku xirayay gabadhu gabara la joogtaa la yiraahdo canug wadata waxay tiri iyadu laftirkeedu hadashay waan badbaadinay nafan isku badbaadinay mooyee anigu gabarna ma guursan gabarna ma qabin maxay ahayd gabarna kale reerka la joogtay gabadhan kale ma maqal joogtaanka ma maqal hadda mid saaxiibtina ku joogtaa ma qaan gabadhan kale hadda uu balaashay halkaasay joogtay waxaan xargahan iyo waxaan qalab ragga u eeg waxaan waa khiyaali iyo South Africa baan qoraa waayo qofka bini'aadanka waxaan loola tagay dumarka kale ah dadku qof waran ma aha uu fahmi karaa waxaan wax jira inay tahay baan u qabaa fakarka waxa jira inay tahay baan qabaa maxaa loogu dalleeyaa marka intii waxa la soo bandhigay la yiraahdo gabadha ayada isticmaali jirtay maanta Soomaaliya wax ku badan aad ogtiin qof aan dambi galan inta la qabso inay dambi uu galay ayadoo maanta Soomaaliya hoggaankeeda soo reesay yahay xagee baa laga heli karaa si fudud leedahay oo qof shalay inta la soo qabtay maanta agabyada la soo bandhigo hubkeedii waxeedaba in badan baa la arkay in badan bay carada ka dhacdaa 24 saac waa aragteen oo sida xabiis hadda ku Gaalkacyo u dambeeyay dhacdo hadda ka dhacday oo u dambeeyay dad uu sirada ya balaayad dad xasuuq waxa loo geystay masaakiin oo gacanta hadda idinku maxaa idii xal ah maxaad rabtaan gabadhu way xiran tahay waxyaabaha loo heestaahay waa inay hubaysneed inay rag iska dhigi jirtay marka sidii booliisku sheegeen idinku maxaa idin xal anaga waxaan u xal gabadhaas wixii dambiyo macnaha lagu soo oogay in loo cadeeyo oo aan helno oo wax ka caajilay dad islaam ah inta arrintaas la fiirsho wixii gabadhaas lagu soo eedeeyay in soo bandhigo oo aan been laga sheegin